gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya kulmiye xildhibaan Axmed Yaasiin Maxamed Barkhad oo isagu ahaa xildhibaanada golaha deegaanka ee gobolka Salal ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay gudaanba inuu xisbigaasi xubinnimadii iyo xilkii golaha dhexe iyo xilkii gobolka Salal uga hayay gudoomiyenimada inuu iska casilay isagoo ku sababeeyay kadib markii xisbigii waa sidoo hadalka u dhigay dad aan ehel ahayn xisbinimada kulmiye ee gobolka Salal oo gacanta u galay waxaan ahaa gudoomiyihii xisbiga kulmiye ee gobolka Salal ahna xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Saylac xisbiga gudoomiyahan oo ahaa oo gobolkan ugu ahaa xubin xisbiga ka tirsanna waan ahaa gabi ahaanba inaan xilkii xisbiga aanu hayay inaan iska casilay gidi xisbigii waa laaqmo waa xumaaday wuxuuna inaan aanan xisbigana marka hore kamid ahayn horena aanan ugu jirin xisbi horena aanan ku jirin ayuu xisbigii u noqday ayuu aftuumay waa wasiirka gaashaandhiga Cabdiqani Maxamuud Caateeye maadaama uu aftuumay waxaa la eegi doonaa meesha uu gaarsiiyay xisbiga dad badan oo tolku reebay ayaa laga sharaxay oo odayaashii cuqaashi ay reebeen oo joogsada yiraahdeen ayuu ka sharaxay awoodiisuna kaga sharaxay cid qabanaysaana ma jirto oo xisbigii dhexdiisa xildhibaan adigu gudoomiyaha gobolka Salal ee xisbiga kulmiye tahay waxa sheegaysaa in xisbigii uu maroorsaday awoodiisii iyo maamulkiisii dadka deegaanka dadkii laga sharaxayay wasiirka gaashaandhiga Cabdiqani adiga miyaanan talada laga qayb gelin maadaama xisbiga ilaa ninkii u joogay gobolka u joogaa wala arigaana laga qayb gelin wala odayaal baana laga qayb gelin cid laga qayb geliyay ma jirto isaga ku kooban tahay iyo dhow Hargeysa degan oo Hargeysa jooga oo gobolka iyo deegaanka war iyo wacaal aanan ka hayn ayay ku kooban tahay arinta xulashadu dib kama taagna meeshu muhiimku ma aha xisbiga muhiimku waa dad in la soo saaro xisbiga soo saarto halku cod uga keenayo isaga u taalaa ku daalimayna taas laakiin waxaan cadeynayaa inaan maanta gabi ahaanba xilkii aan u hayay iyo xubinimadiiba aan iska casilay xisbiga si aan ku beeri doono insha Allah haddii Allah yiraahdo xisbiga u cud taageerayaasheedana waxaan leeyahay hankayga siyaasadeed waa halkii haddii Allah yiraahana mar dhow baan shaacin doonaa ama aan qabsan doonaa xafladda beeritaanka u cud wasiirku marka hore xisbiga muu ku jiray adigu maanta xisbiga uga tagaysay wasiirku xisbiga kamid ma ahayn حتى وقتي أوليه مدحوينها مصبيح عبدي كاركي عضينته مو قادن حتى كاركي عضينته اللي عضيني ما قادن وما لهين وقتي دورشدنا جيبوتي بو كمقنا wuxuu ka soo dhacay cirka soo dhac buu noqday cirku nagaga soo dhacay anaga soo dhaco qadarka alle wax la baajin qadar la wuxuu alla u qoray waxaan baajin karnaa anaku maahin oo kursiga alla u qoray laakiin tolkii iyo dadkii deegaanka waa kala geeyay kala geyntiisuna bal waxa xisbigu ka macaashaan eegi doonaa haddii alla yiraahdo sidoo halkii haddii alla yiraahdo musharaxnimadeeduna waa halkii musharax golaha wakiilada aan hay jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal haddii alla yiraahdo xisbigu uu cudbaan tami doona halkaabayna ka muuqan doontaa ani iyo cida Cabdiqani oo wado haddii alla yiraahdo fardan la isku hayo maxaa la iskaga faanay Soomaalidu tiraay waxaan leeyahay taageerayaashaydii xisbiga ka soo muuqan doona haddii alla yiraahdo u diyaar garooba hadal iyo wax la janjeersada meel tagi maayaan fagaarahaba waa la iskugu iman waxaan halkan uga mahad celinayaa cuqaashii beeshayda dhalinyaradii haweenkii dhammaanba waxaan leeyahay taageerayaashaydii dhammaanba anigoonan kala reebin aad baad u